bismillaahi raxmaani raxiim soo dhowaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa 9ka bisha maaj sanadka 2026 qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay Ukraine iyadoo dagaal ku jirta ayay tallaabo qaaday waxaana caawinaysaa dawladaha qaliijka Ruushka sidaas oo kale miyuu sameyn doonaa waa maxay tallaabada dawladda Ukraine ay qaaday waxaan kaloo aan kula wadaagi doonaa reer Tehran iyagoo banaanbaxaya oo soo dhaweynaya hogaamiyahooda markii ay la kulmeen gantaalada iyo duqeymaha Israel maxay tallaabo ay qaadeen dawladaha qaliijka xalay gantaalo ayaa loo qaybiyay sidoo kalena Israel waxa lagu weeraray gantaaladii ugu horeeyay noocooda ma hogaamiyaha cusub ee dawladda Iran ayaa amarkaasi bixiyay xaaladda guud sida ay tahay goobaha la bartilmaameedsaday dalalka qaliijka ilaa sidoo kale magaalada Tel Aviv qadar calada ay muujinayso marka la eego duqeymaha iyo warbaahinta reer galbeedka oo si weyn u falanqeynaya hogaamiyaha cusub ee dawladda Iran dhinacyo badan ayay wax ka eegayaan soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan anna waan kula wadaagi doonaa macluumaadkaasi ku soo dhawaada mar kale iyo maracadasho barnaamijka falanqaynta caalamka ma doonaysaa sidan oo kale